subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. Warar kala duwan ayaa laga helayaa weerar xalay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin duleedka degmada Qaryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddiga amniga maamulka Jubbaland iyo laamaha amniga maamulkaasi ayaa magaalada Kismaayo ku soo rogay bandow ka bilowday habeennimadii xalay ahayd. Somaliland ayaa si kulul uga hadashay weerar ciidamada Puntland ay ku qaadeen gudoomiyihii gobolka Sanaag ugu magacownaa maamulka Somaliland. Madaxweynaha Jubbaland ayaa xalay magaalada Kismaayo kulan aan caadi ahayn kula qaatay dhammaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland kana codsaday inay doortaan. Maamulka degmada Balad Xaawo ayaa la sheegay in odayaal dhaqameed la soo kulmay Al-Shabaab ay u diideen inay gudaha u soo galaan magaaladaasi. khilaafkii ugu xoogana ayaa waxa uu soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo kulamo xalay ka dhacay madaxtooyada Puntland ee Garowe. maamul goboleedka Galmudug ayaa been abuur ku tilmaamay dhismaha dekedda degmada Hobyo ay caqabad weyn ku tahay habsimo socodka shaqada dekedda magaalada Boosaaso. akhbaaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah milatariga dalka Suudaan iyo golaha shacabka dalkaas oo gaaray in la soo dhiso dawlad rayid ah. mar kale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo Arbaca ah 22ka bisha 8 ee Agoosto sanada 2019. intii aad maqasheenna waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. guddiga amniga maamulka Jubbaland iyo laamaha amniga maamulkaasi ayaa magaalada Kismaayo waxay ku soo rogeen bandow ka bilowday habeennimadii xalay ahayd, iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha Jubbaland xalay uu kulan la qaatay dhammaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland isagoo ka codsaday in codkooda ay siiyaan. Cabdisataar Xaaji ayaa warkan faafahinaya. shir jaraa'id oo isugu yimaadeen guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay ka soo saareen awaamiir dhinaca amniga oo ku saabsan inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka. war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga amniga ayaa u qornaa sida tan: ujeedo amniga magaalada Kismaayo maalinta doorashada. shir ay isugu yimaadeen guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo looga hadlay amniga magaalada Kismaayo inta lagu guda jiro doorashooyinka ayaa falaqayn iyo ka baarandegid dheer kadib guddigu waxa uu soo saaray qodobada hoos ku xusan. laga bilaabo 6 maqribnimo 20ka bisha 8 ee 2019 ilaa 23ka bisha 8 ee 2019 waxa la xiray xuduudaha magaalada Kismaayo ee cir, dhul iyo bad. waxaa heegan la geliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka kuwada ka howlgala magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, iyadoo la fulinayo heshiiskii ay wada qaateen guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo hoggaanka Amison ee ku aadanaa sugidda amniga xilliga doorashooyinka. waxaa la farayaa ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliska Amison inay sugaan adkeeyaan amniga goobta doorashada iyo xilliga doorashada. waxaa la joojiyay dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan maalinta doorashada oo ku aadan 22ka bisha 8 ee 2019. wixii aan ahayn booliska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliska Amison waxaa la farayaa ciidamada in ay xeryahooda ku sugnaadaan. iyadoo la fulinayo go'aanka guddiga waxaa la farayaa hay-adaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland, ciidamada Amison, maamulada garoonka diyaaradaha Kismaayo, dekedda Kismaayo iyo baraha kontaroolada laga soo galo magaalada Kismaayo inay xaqiijiyaan meelmaridda go'aankan. ugu dambeyn waxaa laga codsanayaa bulshada reer Jubbaland inay la shaqeeyaan ciidamada ku howlan sugidda amniga magaalada Kismaayo. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa ku waramaya in magaalada uu ka dhaqan galay bandowga ay ku soo rogeen maamulka Jubbaland iyadoo aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo laga dareemayo magaalada Kismaayo.
dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa xalay kulan la qaatay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland isagoo ka codsaday xildhibaanada inay taageeraan si uu mar kale ugu guuleysto doorashada maalinta berri ah ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland. maamulka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa la sheegay in uu diiday inay gudaha degmada soo galaan odayaal dhaqameed la sheegay inay la soo kulmeen al-shabaab. odayaashan oo kor u dhaafaya ilaa 19 xubnood isla markaana ka mid ahaa odayaal dhowaan tagay magaalada waa deegaanada ay ka harimiyaan shabaabku ayaa waxaa wararka helayna ay sheegayaan in odayaashu ay sheegeen in aysan marna ka gaabsan karin go'aamada ka soo baxa shabaabka iyagoo u hoggaansamay go'aanadaas isla markaana tagay deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe. wararkan helayna saaka waxay ku soo waramayaan in odayaashan oo 19 xubnood gaaraya xalay ay ku bariyeen duleedka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ka gadaal markii gudoomiyaha degmada Balad Xaawo la sheegay inuu adeegsaday ciidamo isaga u gaara kuwaas oo uu sheegay in odayaashu aysan soo gali karin degmada Balad Xaawo hadda wixii ka dambeeyana ay odayaasha ku tirin doonaan inay shabaabka la xiriiraan ama iyaga ay ka tirsan yihiin. idaacadda Simba ayaa waxay la hadashay mid ka mid ah nabadoonnadaas oo ku sugan dilaadka degmada Balad Xaawo. والله هرجع دتك اسكولير معها ما دام مامي كويد بيها دتك اسكولير فضاد معها اسكوليرنا معها بدنا عبصرة هي ودنا مامي كودتك حرها يا جنة وقع بنا عسكر كبها هي وقلنا عشان الحرب بقى دل بالليل مركا هدوية يا عمك الديوان إلا الدلكاء عبصرة هي سيدا عشان كلفة سير إن أنكاس آوان نقول أن نقول بالنيان وقصة قصة نخورنا دام أنكاس ليش غير إنسان ليش الديوان ليش غير وانا بقول dhinaca kale xiriiro kala duwan oo aan la sameynay laamaha ammaanka degmada Balad Xaawo iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Balad Xaawo iyo ku-xigeenadiisa dhammaantood si cad waxay ugu sheegeen inaysan arrintan hadda ka hadli karin iyagoo sheegay in arrintan ay tahay mid ay horey digniin uga bixiyeen odayaashuna ay ka dhaga adeegeen. wararka helayna waxay sheegayaan in dadaalo ay ka socdaan degmooyinka Garbahaare iyo Balad Xaawo kuwaas oo la doonayo in lagu xalliyo tabashooyinka odayaasha sidii loogu fasaxi lahaa inay gudaha u soo galaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. bishii aynu soo dhaafnay dabayaaqadeedii maamulka degmada Balad Xaawo qoraal ka soo baxay ayaa looga digay odayaasha dhaqanka degmada Balad Xaawo inay u hoggaansamaan amarada ka soo baxa shabaabka waana tan keentay in odayaashu ay ka dhaga furaystaan amarada ka soo baxaya maamulka degmada Balad Xaawo una hoggaansamaan amarada ka imaanaya dhinaca xarakada al-shabaab. Somaliland ayaa si kulul uga hadashay weerar ciidamada Puntland ay ku qaadeen gudoomiyihii gobolka Sanaag ugu magacawnaa Somaliland. Yaxya Ciise ayaa warkan faahfaahinaya. wasiirka warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ka hadlay qasaaraha dagaal dhex maray Somaliland iyo Puntland oo ka dhacay gobolka Sanaag. dagaalka oo si gaar ah uga dhacay deegaanka Fahatimo oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa wasiirku uu sheegay in labada dhinac uu soo gaaray qasaare balse weerarka ay soo qaadeen maamulka Puntland waxa uu eedeyn dusha kaga tuuray ciidamada Puntland ee ku sugan gobolka Sanaag isaga oo sheegay in dagaal ay ku qaadeen gudoomiyaha ugu magacaaban gobolka Sanaag maamulka Somaliland balse uu ka badbaaday weerar isku day dil ah oo ciidamada Puntland ay la damacsanaayeen. baran iyo agagaarkeyga gobolka Sanaag ama gobolka Baran waxa duulimaad soo qaaday ciidamo uu hogaaminayo muxuu ahaa nin taliyaha oo Puntland ka socda waxay u galeen jidgooyo barasaabkii gobolka Baran ciidankaygu iska difaacay inkastoo ay dee tiknika 6 baabuur iyagu wateen xagayga hal tiknika iyo gaarigii muxuu ahaa barasaabka unbay ahaayeen waan ku xunahay dhacdada dal jaara oo Soomaali muxuu ahaa dhinaceega waqooyi kuwa xadka nala maamul goboleed ha ahaadaan dawladda Soomaaliya ka mid ah ayaa muxuu ahaa ciidankaas ka tirsanaa. waxaan filayaa madaxweynuhu dhaartii dowladda waa ka hadlayay kulan waxaan uma malaynayaan dagaal ku degdegsan ama jecel hase yeeshee waa la isku hoos jiraa odayaal baa ka soo talinaya Puntland وكيا فروله عبد الرحمن فروله وكمل ها عبد الله يوسف
oo ka mid ahaa Cadda Muuse iyo raggii kale ka soo tilinayay oo nabadda halkaasi muxuu ahaa runtii gaadh nagala hayay oo ilaalinayay waa ka xunahay arrintaa furunta soo furantay ciidamada Soomaaliland faraha laga fahmayaan kana joogsan maayaan haddii dalkooga ama xadkooga lagu soo xadgudbo barasaabku wuxuu ku noqonayaa baran xaruntiisii uu fadhiisanayaa ciidanka Soomaaliland gardarrada maanta dhacday u dulqaadan maayaan taasaan u sheegaynaa ha laga ilaaliyo dadka walaalaha deriska ay dhibaato la dhex dhigo taasaan ku boorinaynaa muxuu ahaa doonana inaan u sheegno hana ku bushaaraystaan ciidanka qaranka halka jooga in ay u difaacdaan dalkooga diyaar loo yahay taasaan boorinayaa waa wax aanu ka xunnahay waxaan leeyahay madaxweynaha ha laga dugtoonaado xadka aynu wadaagno in dhibaato ka soo korodho geeska waxa haysta iyo waxa ka taagan waynu ogsoonahay dadka deriska ee walaalaha ah ee ood wadaagta ah yaan dhibaato la dhex dhigin dagaalkii ugu dambeeyay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Hadaafatimo oo ka tirsan gobolka Sanaag waxa uu dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland maamulka Somaliland ma sheegin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse wasiirka warfaafinta ee Somaliland waxa uu sheegay in uu jiro khasaare uu dhaliyay dagaalka ka dhacay deegaanka Hadaafatimo oo ka tirsan gobolka Sanaag khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa gaaray meeshii ugu xumeyd iyadoo dhinaca kalena xalay kulamo ay ka dhaceen madaxtooyada Puntland ee Garowe madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Axmed Cismaan Cilmi Karaash ayaa wararka helena waxay sheegayaan inay isku maandhaafeen qodobo dhowr ah oo ku tacalluqa habsami u socodka maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa wararka helena waxa ay sheegayaan inuu soo magacaabay xubnaha kumeel gaarka ah ee doorashooyinka maamulka Puntland kuwaas oo ka kooban 5 xubnood Karaash ayaa war qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in haba yaraatay aan lagala tashan soo xulista xubnahaasi isagoo sheegay in dastuurka Puntland uu qabo in wax walba lagu dhameeyo wada hadal wada tashi iyo sidoo kale isku dhaga furnaan madaxweynaha Puntland ayaa iyadoo arrintaas ay taagan tahay haddana waxa uu soo hadal qaaday arrinta gobolada Sool iyo Sanaag iyo waxa laga sameyn doono maamulka Somaliland oo xifaaltan xoogan kala dhaxeeya Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa wararka waxay sheegayaan in uu doonayo in arrinta Sool iyo Sanaag lagu xaliyo miiska wada hadalka nabadda iyo xasiloonida labadaas gobolna laga shaqeeyo iyadoo laga duulayo dagaal halkaasi ka dhaca halka madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash isna uu doonayo in arrinta dagaal lagu dhameeyo maadaama Somaliland ay xoog ku haysato qaybo badan oo ka mid ah gobolada Sool iyo Sanaag siba gobolka Sool oo caasimadiisu ay tahay magaalada Laascaanood labada mas'uul ayaa la sheegay inay isku maandhaafeen markii labaad arrintaasi waana tan sababtay in Karaash iyo sidoo kale Dani ay xafiisyada ku alaaba gurtaan isla markaana ay ku kala fogaadaan odayaasha dhaqanka magaalada Garowe ayaa wararka helena waxay sheegayaan inay arrintan u tafaxayteen iyagoo sheegay in ay dhameyn doonaan khilaafka labadan mas'uul soo kala dhaxgalay waa markii ugu horeysay tan iyo markii labadan shakhsi la doortay khilaaf noocan oo kala uu soo kala dhaxgalo xalayna madaxtooyada Puntland ee Garowe waxa ka dhici lahaa kulan lagu dhexdhexaadin ee labada mas'uul balse waxa la sheegay in Karaash uu diiday inuu tago madaxtooyada Puntland isagoo dhinac ka degay magaalada Garowe ee caasimada Puntland khilaafka labada mas'uul ayaa si weyn looga hadalhayaa deegaanada Puntland siba magaalooyinka Qardho Boosaaso Gaalkacyo iyo sidoo kale xarunta Puntland ee Garowe maamulka galmudug ayaa been abuur ku tilmaamay dhismaha dekada degmada Hobyo ay caqabad weyn ku tahay habsami u socodka shaqada dekada magaalada Boosaaso gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug Cabdi Sheekh Xuseen oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu abaaray halka ay marayso dhismaha dekada degmada Hobyo
waxa uu gaashaanka ku dhuftay wararka sheegaya in haddiiba la dhiso dhismaha dekadda degmada Hobyo ay gabaabsi geli doonto shaqada dekadda magaalada Boosaaso isagoo sheegay taas inaysan macquul ahayn haddii la dhiso dekadda degmada Boosaaso iyo dekadda degmada Hobyana ay labaduba yihiin kuwa ay Soomaali leeyihiin isagoo ka codsaday dadka wararkaasi been abuurka baahinaya inay ka waantoobaan waxaan leeyahay taas kulli haddii cid ay masaa'il ku jirta ay jiraan waxaan leeyahay barnaamij sax ma aha haddii ayna jirin hadlaba jirtada dekada Hobyo ama dekad Soomaaliyeed oo dhismaysa oo dad Soomaaliyeed u dhismaysa qof kasta oo Soomaali oo muwaadin ah leeyahay soo dhaweeyo waa wax wanaagsan ee Soomaaliya u soo kordhay tan Boosaaso nafteeda loo isticmaalo tan Hobyo nafteeda loo isticmaalo tan Kismaayo nafteeda loo isticmaalo tan Muqdisho loo isticmaalo unbay ku fiican tahay waxaan isleeyahay runtii cidda ku fakarayaan deegaankaas wax ka dhashay dee fakarkaasi fakar aad aniga ila fiican maaha waa fakar khaldan haddii ciidaba qabto haddayna qabinna hadda waxaan leeyahay waa waxaan jirin baaqi ugu dambeeya waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay ilaahay barwaaqo iyo bashbash hana siiyo dowladdana allah noo wanaajiyo haddii wanaagsan tahayna dee allah sii wanaajiyo gaar ahaan dadka ku nool galmudug waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo waxaa u soo yatay galmudug guulo muhiim ah gaar ahaan dadka ku nool gobolka mudug waxaan leeyahay guulo fiican baad gaarteen guushiina ilaashada dhammaan ummadda Soomaaliyeedna iyo mas-uuliyiinta waxgaradkana waxaan leeyahay laga shaqeeyo dalka horumarkiisa iyo qabadkiisa laga shaqeeyo dhammaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug weli waxaad maqlaysaan warka subaxnimo ee raadiyaha Simba markana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaasha milatariga iyo mucaaradka dalka Suudaan ayaa si dhameystiran u sameeyay golo ka kooban 11 xubnood oo dalka Suudaan ka talin doono saddexda sano ee soo aadan golahan oo ka kooban 11 xubnood 6 kamid ah waxaa laga soo xulay shacabka halka 5 laga soo xulay milatariga waxaana hogaamin doona General Abdel Fattah Abdirahmaan Burhaan General Burhaan ayaa noqonaya hogaamiyaha Suudaan waxa uuna bedeli doonaa madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir golaha cusub ayaa waxaa la dhaarin doonaa subaxnimadan Arbacada ah sidoo kale golahu waxa uu yeelan doonaa ra'iisul wasaare sil isla maanta loo dhaariyo isna guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta